عثمان عبد الله سحديد عداني وزير كورفافينتا سوماليلاند أنا afhayeenka xukuumadda oo qayb ka mid ah warfidiyaanka kula hadlayay xarunta guud ee wasaaradda warfaafinta ku leedahay gudaha Hargeysa ayaa waxa uu si adag jawaab ridicilin uga bixiyay dhawaaqyo isku mid ah oo maalmihii laga soo gudbay ka soo yeedhayay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani kuwaas oo ku qotomay sida ay uga xuyeen in xukuumaddu la gasho dal shisheeye in saldhig military uu ku yeesho magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil si gaarana ay u soo qaadanayeen wadahadalka u socda xukuumadda iyo sidoo kale dawladda Imaaraadka ee ku aadan saldhig military oo laga sameeyay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaan wasiirku tilmaamay in haba yaraatee aanay waxba ka jirin dhawaaqyada shacbiga ay ku majara habaabinayaan waa sida uu hadalka u dhigay mas'uuliyiinta xisbiga wadani isagoona wax laga xumaada ku tilmaamay in ay ku baaqaan mudaharaad ay shacbigu iskugu soo baxaan danta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baa ku jirta saldhigaas kan imika ma aha ka caruurtii soo dhali doonaan baa ku xigta xaalna waxaan mashaariic tirinayay wadada ceergaabe dhamaadka ku dhow airportka maanta maxaan ku raadayay jira waxa la wixii la soo qaaday way ka soo horjeedaan marka ugu horeysa xitaa oran maayaan intay dirsaan war maxaanu ka yeelaa ama maxaanu sameeynaa ama sida waxaan leeyahay annagu waxaanu siinaynaa waxa ay mudan yihiin waa muwaadiniin jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ah qaarkood madaxda qaranka ay ku jiraan anagu caynayna gabadhiya waxaanu qarankii ummadda u haysana ummaddaanu soo bandhigayna waxaan kaga baxayaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay durbaankaas danta la mooday ee sida xun loo garaacayo haddii la garaaco aan Soomaaliland lagu lulanayn yaaliil waxaan kaloo leeyahay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland danta ummadda ayaa ku jirta in saldhigga la sameeyo qof kastoo jamhuuriyadda Soomaaliland joogo xildhibaankaaga la hadal u sheeg inay dantu ku jirto madaxweynaha shaqadiisa ugu weyn waxa weeye cadaaladaas markay dhacday markay soo baxayso inay jamhuuriyadda Soomaaliland nabadgeliyo laguna seexdo laguna soo tooso ka doonaya inuu khalkhal ka rido ku suurta gelimayso shuruuc buu dalku leeyahay adigoon xiisaanad ku gaban adigoo nin weyn oo la yaqaano maxaan ku raadayay Soomaaliland taqaalo ku gaban haddaad dalkan khalkhal gelinayso iyo nabadgelyadiisa shuruucda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u yaala ayaa maxaan ku raadayay laga qaadaya mar kale Cusmaan Saxardiid Cadaani isagoo ku hadlaya afka xukuumadda waxa uu hanbaliyay madaxweynaha Soomaaliya habeenkeenu ka soo gudubnay lagu doortay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu hanbaliyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wuxuu kale ku hanbaliyay nabadgelyada doorashadaas ay walaalaheen aanu jaarka nahay labada dal ay doorashadaas ugu dhacday waxaanu leenahay haddii Farmaajo yimaado iyo haddii mid cambe loo bixiyo yimaado Farmaajo waa cheese la cunaa ma garataan haddii nin cambe loo bixiyo yimaado iyo haddii nin kale oo muus loo bixiyo yimaado iyo haddii kale oo nin magac kale loo bixiyo yimaado waxa la wax siyaasadda Soomaaliland iska bedelaya ma jirto weeraha ku qotoma saldhig military oo dawladda Imaaraadku ka samaysato magaalada Berbera iyo heshiis xukuumaddu la gasho ayaa si weyn goobaha bulshadu isugu timaado loogu falanqeynaya iyadoo la filayo in maalinta xaddi fooda inagu soo haysana qoraal madaxweynuhu soo diray labada aqal gole ee guurtida iyo wakiilada iyagoo dhaqan gelinaya in kulan degdega ay isugu iman doonaan halkaana madaxweynuhu uga jeedin doono warbixin dheer sida uu tilmaamay wasiirka warfaafintu oo Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.